safiirka safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kulane oo ka warbixiyay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Shiinaha si gaar ah gobolka Wuhan ee uu ka dilaacay caabuqa coronavirus-ka. dad badan dalka Shiinaha ugu dhinteen qaar kalena la ildaran yihiin. Danjire Cawaale ayaa sheegay in gobolka Wuhan ay ku nool yihiin ku dhawaad 50 ruux oo Soomaali ah kuwaas oo u badan arday wax ka barata 5 jaamacadood oo gobolkaasi ku yaala. Danjiraha ayaa intaa ku daray in dhammaan muwaadiniintaas ilaa iyo hadda ay caafimaad qabaan ayna sidoo kale xiriir la soo sameeyaan safaaradooda oo xilli walba diyaar u ah inay caawiso. Danjire Cawaale ayaa ugu baaqay muwaadiniintaas inay qaataan talooyinka caafimaad ay bixinayaan hay-adaha si cudurkaas u sii faafin oo loo xakameeyo. ugu dambeyntii safiirka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kulane ayaa si guud ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Shiinaha ku nool inay la soo xiriiraan safaaradooda meel walba ay kaga sugan yihiin dalka Shiinaha.